warbaahinta iyo siyaasiyiinta dalka Jarmalka ayaa wada olole ballaaran oo ay uga soo horjeedaan madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan taas oo ay ugu wacan tahay garab istaaga Falastiiniyiinta ee Gaza iyo eedeynta uu u jeediyay Israa'iil ee ah galida dambiye ka dhanah bani'aadanimada dagaalka ay ku hayso marinka Gaza iyo u dhaqmida sidii urur ahaan taasoo Israa'iil ka keentay inay dib u eegayso xiriirka ay la leedahay Ankara mar walba oo Ankara ay qaabisho mas'uul Jarmal ah ama mas'uuliyiinta labada dal ay kulmaan waxa ay soo taraya dhaleecaynta ka dhanka ah siyaasadda madaxweynaha Turkiga balse markan codka ayaa ahaa mid aad u sareeya taas oo ay ugu wacan tahay dawladda Jarmalka oo taagan iyaga oo si buuxda uga soo horjeeda mowqifka Turkiga ee dagaalka Gaza dhinaca kalena garab taagan Israa'iil midnimada dawladda Jarmalka ee Tel Aviv ayaa gaartay heer ay diido xabad joojinta Gaza ee sabab bani'aadanimo dartood loo hakin lahaa intii lagu guda jiray shir wasiirada arrimaha dibadda midowga Yurub ku yeesheen dalka Luxembourg Yunus Ulusoy oo ah khabiir ka tirsan xarunta cilmi baarista isdhexgalka Turkiga ee jaamacadda Duisburg-Essen ayaa sheegay dhacdooyinka Gaza waa cirifka barafka waxayna xoojinayaan sawirka xun ee Erdogan ee Jarmalka arrintu marka hore kuma xirnayn colaadda bariga dhexe balse waxay la xiriirtaa siyaasadiisa iyo mowqifkiisa awoodda ku dhisan ayuu yiri cilmi baaraha Turki Jarmalka waxa uu sharxayaa in Erdogan looga arko Jarmalka inuu yahay qof xakameeya mucaaradka oo cadaawad u ah dimuqraadiyadda isaga oo tilmaamaya in kooxaha mucaaradka Turkiga ay aad ugu firfircoon yihiin dadweynaha Jarmalka inkasta oo Erdogan si dimuqraadi ah looga soo doortay dalkiisa Bijan Gersray oo ah xogayaha guud ee xisbiga dimuqraadiga xorta ah oo ah xisbi xubin ka ah dawladda Jarmalka ayaa yiri hadalka nacaybka joogtada ah ee Erdogan ee ka dhanka ah Israa'iil iyo midnimadiisa ururka argagixisada ah ee Hamas waa mid aan loo dul qaadan karin warbaahinta Jarmalka ayaa si weyn diiradda u saartay hadalka Erdogan ee Hamas ee uu ku tilmaamay inay yihiin dhaqdhaqaaq xornimo doona isla markaana uu ku sifeeyay dawladaha reer galbeedka inay yihiin kuwa taageeraya dambiyada ka dhanka ah bani'aadanimada ee ka socda marinka Gaza waxaa sidoo kale dhaleecayn ka timid Johannes Winkel oo ah hogaamiyaha dhalinyarada ee Christian Democratic Union oo ah xisbigii hore ee Chancellorkii Jarmalka Angela Merkel oo u sheegay wargeyska caanka ah ee Bild Erdogan wuxuu ahaa walinayahay islaami wuxuu muddo kicinayay Israa'iil iyo Jarmalka wali waxaan haysanaa xoogaa ixtiraam ah wargeysyo dhowr ah ayaa isku mowqif ka qaatay Erdogan iyadoo website-ka wargeyska Welt uu daabacay fikradaha qorayaasha iyo shakhsiyaadka diiday Erdogan oo ay ku eedeeyeen inuu taageero waxa ay ugu yeereen argagixisada waxaana ka mid ah maqaal uu qoray saxafiga mucaaradka Turkiga ah ee Dennis Yücel kaas oo ugu baaqay Scholz ra'iisul wasaaraha Jarmalka inuu baajiyo qaabilaadda Erdogan wargeyska Der Spiegel waxa kale oo uu qoray in Erdogan uu halis gelinayo nabadda gudaha Jarmalka iyo inuu laba jibaari doono caqabadaha Jarmalka kula mucaamilayo bulshooyinka soo galootiga ah isagoo u marinaya khudbadihiisa xanafta leh siyaasiyiinta Jarmalku ma qariyaan khilaafkooda siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga oo ku saabsan arrimo badan inkasta oo xiisadda Jarmalka iyo Turkiga ay yaraatay markii uu qabtay Scholz talada waddanka gaar ahaan tan iyo markii Ankara ay in muddo ahba ku socotay qaab cusub oo ah inay dabciso codkeeda ka dhanka ah reer galbeedka iyo qaadashada door weyn oo dhexdhexaadin ah oo ay ka ciyaaraysay dagaalka Ukraine si kastaba ha ahaatee ee taasi kama hor istaagin in khilaafku sii socdo Ankara waxay Berlin ku eedeysay in ay u xaglinayso Greega oo khilaaf kala dhexeeyo Turkiga iyo waliba taageerada ay u fidiyaan mucaaradka Turkiga gaar ahaan bulshooyinka Jarmalka halka Berlin ay Ankara ku dhalisay xariga suxufiyiinta iyo mucaaradka Turkiga ayaa sidoo kale ku eedeeyay Jarmalka inay qarinayaan dhaqdhaqaaqa xisbiga shaqaalaha Kurdistan kaas oo aqoonsan tahay inuu yahay urur argagixiso waxa kale oo xiisadda kordhinaya waxa Turkiga u arko vetoga Jarmalka oo ka hortaagan dood dhab ah oo ku saabsan ka mid noqoshada golaha midowga Yurub Jarmalku waxa uu hore u qaatay mowqif adag oo ku aadan soo galitaanka Turkiga ee golahaasi dad aad u tiro badan oo Turki ah ayaa ka qayb galaya banaanbaxa lagu taageerayo Falastiiniyiinta ee ka socda dalka Jarmalka iyada oo la og yahay in Turkidu yihiin shisheeyaha ugu badan ee ku nool dalkaasi taas oo ka dhigaysa hay'adaha islaamka ee Turkiga kuwa ugu weyn balse inta badan hay'adaha Turkiga ee ku sugan dalka Jarmalka waxay isku dayayaan inay si isku dheeli tiran u ilaaliyaan dagaalka Gaza waxaana ka mid ah mowqifka midowga dimuqraadiyiinta caalamiga ah oo ah koox ka kooban ururo rayid Turki ah oo fadhigoodu yahay magaalada Cologne ee Jarmalka waxaana loo arkaa
ololayaal taageera xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Turkiga ee haya talada waddankaasi. Ururka ayaa ku dhawaaqay baahida loo qabo xabad joojin ka dhacda Gaza sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo oo fursad la siinayo nabadda isla markaana la joojinayo colaadda. Marka laga yimaado dhaqdhaqaaqa mucaaradka Turkiga ee dalka Jarmalka, qaar ka mid ah warbaahinta loo furay, haddana Erdogan waxa uu shacbiyad weyn ku leeyahay Turkiga maadaama uu helay ku dhawaad 3 meelood 2 codadkii codbixiyayaasha ee dhawaan doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday waddankiisa. warbixinteenii intaas ayaan ku hakinaynaa. waa Abubakar Maxamed oo idin leh waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin. ha moogaanina inaad ka mid noqotaan saaxiibada Tifaftid Media. nabad iyo warsan.